السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت بدن كشرا سومالي كريبتوفوليو يوتيوب شانل. حياكم الله وبياكم. موقال كنا ما أنت عنوانك سوى عماير عجيبة. عنوانك سوى حنكر دت كاجا إيدع. فكرة وحي يقول تمي تليجرام اللي يسوتري. والله شرفت بدن فيديو انت انا بلا waxaan ku oran lahaa barakallahu fiikum haddaad nagu cusubtihiin channelka badhanka subscribe-ka taabo si aad ugu noqotid member ku jira YouTube channelkeena insha Allah ku dadaal inaad videoga share gareysaan haddaad xaqiiqatan tahay qof ku xiran kanaalka oo ka faa'iideysta markasta haylaawin fadlan inaad like saartid adigoo mahadsan barakallahu fiik أخياري عدسي الروائد ويدينيا إن شاء الله كانال كيغلبات سو بوغدا سبورت سي سغلفتيسا وحوغا بان كسي هذا كانال كلبات انت كنكم مشغول كها مركا إن شاء الله سو بوغدا فيديو بان سو دغيا ميشا waxaan soo dhigaya qaybta commentiyada ama description kan soo dhigaya waa video cajiib xaqiiqatan qisad cajiib oo af carabi ahayd oo aan af Soomaali inuu ku turjumay ayaan jeclaan lahaa inaad taan soo eegtaan oo ka faa'iideysta insha Allah taala mawduuciinu maanta waxa weeye waa nin la dhaho Allen ninka kan wuxuu isoo diray qoraalku waxa weeye waa af English ninkan wuxuu doonayaa bal inuu eegno wuxuu yiri hello sir I'm the manager of TRX mining company our company is currently promoting and you need a lot of YouTube blogs to promote our company ninkani wuxuu yiri waxaanahay managerka ama ninka ka mas'uulka ah company la dhaho TRX mining company dib u noqda waxaan ka hadli jirnay cloud mining kambaniyada sameeya dib ugu noqda khiyaari fiidiyoyadii aan kaga hadli jiray barigi hore kaas ma xusuusinaya wax la oran jiray chain mine videogan ka sameeyay dib ugu noqda chain mine cloud mining ee Soomaali badan lacagtooda lagu gubay dib ugu noqda ka waa copy exactly soo kale weeye laakiin ninkan muxuu arkay bal aynu hadalka dhameystiro wuxuu yiri waxaan ka rabaa kambanigayga waqtigan xaaliga ah waxaanu promote gareynaa oo waanu faafinaa businesskayga dadkoo dhan baan u sheegnaa waxaad u baahan tahay buu yiri a lot of YouTube blogs YouTube far badan aad ka samaysid to promote our company si aad kambanigayga noogu faafisid oo u promote gareysid oo u meel kasta u gaaro your channel is excellent oo amaanaya channelka Somali Cryptofolio amaanaya wuxuu ku arkay 7,000 oo subscriber waa iska channel daciif ah channelkaygu xaqiiqatan marka la barbar dhigo channelada Soomaalida YouTuberada haysta cryptocurrency kama hadlayo laakiin general marka la eego waa daciif channelkaygu yani 7,000 ma badna lambar aad weyn maaha marka la eego yani waxaad oran kartaa waa kanaal iska gurguranaya insha Allah maalmaha kamida uu gaari doona meel fiican sababtoo hadii dadku ku bataan subscribersku meel kasta uu gaari doona ummadda Soomaalidna aad bay uga faa'iideysan doontaa biidnillahi ta'ala wuxuu yiri your channel is excellent uu amaanay I would like to work with you waxaan jeclahay inaan kula shaqeeyo can we chat ma ka sheekaysan karnaa about cooperation details and fees ma ka sheekaysan karnaa tacaawun and fees ka muxuu jeedaa waa lacag aan wax ku siino يعني wuxuu doonayaa inuu yiraahdo ummadaada ama dadka aad ku dhex jirtid ee Soomaalida ah ee kanaalka magaciisu yahay Somali Cryptofolio intaas oo ku jira oo ku daawada ma dhici kartaa ma noo dhici kartaa dadka marka noo dhacdid waxa weeye aadna waxa lagu siinayaa lacag waxa lagu siinayaa mesela 10,000 oo tron ah ama 5,000 oo tron ah $200 ama $500 ku soo tuurina oo lagu yaqaan kamarada noocan oo kale hore oo soo arkay فيديو habeenkii ma ahayn subax markaan telefoonka furay uun baan arkay 6:53 subaxii bay ahayd oo aamusay juuqu ma oran markay ahayd 12 duurnimo ayuu soo diray mar labaad wuxuu soo qoray markay 12 ahayd iyo 18 minute wuxuu soo qoray please reply sir isla markiina wuxuu yiri I really work with you sir inaan kula shaqeyn rabaa uu jeedaa inta aan ku sameyn blog saarin hoostan wuxuu ku soo qoray su'aashan question mark su'aashaas oo kale maasha calaamada su'aashu soo dhigay macnaha ma adii jawaabtid blog baan saaray anyway laakiin kan waa musawir weeye kan waa screenshot weeye aan soo qaaday marka wuxuu rabaa ninku in dadka la dhaco Soomaali in la soo wada geliyo meesha sidii maaragtay chain mine dadka badan ay Soomaalidu soo gelisay ee aan idinka digay ee idinku iska ilaaliya chain mine company-ga dadka iraada mining bor sameeyna taana waa arki jirtay waad aragtay YouTube Soomaali ah oo galay zoom galay oo YouTube-kooda guri kasta gaari wallahi alcadiim 40,000 oo qof 50,000 oo qof baa daawaday iyagoo laga hadlayo chain mine oo ninka Soomaali ku leeyahay chain mine kaalayo ka faa'iideysta waa company Ingiriiska naga joogna oo company Ingiriiska saldhigu yahay Ingiriiska naga joogna waa la soo eegay meesha qol yar weeye cinwaankaas ay soo qoreen waa nothing waxa kama jirin qolka laakiin qofka wadanka jooga Soomaaliya waxa laga dhaadhicinayaa meeshan oo meel sax ah oo Ingiriisku jooga waa lagu dhacay dadkii maxaa isku dhacay chain mine albaabada la isugu xiray YouTube-kii dadka loo geliyay kumayaalka kunay soo galeenna ee lacagaha laga qaatayna meeday lacagtii hawada tagtay dadkiina waa lagu dhacay yaana u sheegay kambaniyada ayaa soo faafiyay yaa sheegay yaa faafiyay kambaniyadana Soomaali bay ahayd YouTuber ah
ولذلك ما أي جعل سوماليدو فيديو نوع عنو كلا عن سمينيو ما أي جعل لأنه فيديو كان هو كسر كذا وحيالها كان نتورك كان يكون شقينا يعني بوقتها دتك مساكين اللي أكتر لكم دعيو يكسر كذا marka way ku dadaalayaan in ay la dagaalamaan channelada moogtay la dagaalamayo scammers marka channelada noocan oo kale ah Soomaalida dadka uga digaya tuugta in support siya fiican hadda alxamdulillah rabbil alamin dad badan oo groupkan uga jira way yaqaaniin inuu scamka qaabka la isaga celiyo qaabka la isaga fogeeyo way ogyihiin qaabka loo dagaalamo laakiin dad badan baa jira masaakiin aan ogeyn laakiin dad baa jira ilaahay iimaanka qaaday dad baa jira ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka ka qaaday oo Soomaali ah oo still dadkii dhacaya YouTube samaysanaya coinkii xalaash ah iyo coinkii xaraanta ma kala garanayo coin buu foodo u geliyay hore coinka iibso wuxuu yahay ma u baarin mana garanayo محلال با محرام با من يقانو لكن مساكين ودنكي جوغا ايو فودو غرينيا marka walaalayaal ka taxadara waxyaalahaas oo kale ugu digniinteedu way socotaa waana macrakad way waa dagaal macrakad bayna alxaq wal baatil waa macrakad bayna alkhayr washar way soconaysaa ilaa inta adduunka aynu ku noolahay ilaahay baa abuuray khayr iyo shar wax dhamaanayna ma aha waa wax ilaa abadil aabidin soconaya macrakada ama dagaalka khayrka iyo sharka marka idinku weligiin dhinaca khayrka la socda oo taageera insha Allah ninkii halkaasaynu ku dhammaynay shakadiisii waa burgareeyey waxaa laga yaabaa waxaan la yaabsan laakiin ninkan telegramkayga waa taqaaniin cunwaankiisa @ahmed1492 waa taqaaniin cunwaankiisa siduu ku helan la yaabay YouTube-ka markaan ka hadlayo oo programmada kala duwan ka hadlayo oo soo dhigo telegramkayga hoosta soo dhigo ninkan YouTube-ka ma daawanayo bas dushu saa ogigayga cunwaankayga meeshuu ka keenay ma garanayo waxaa dhici karta inay dad u direen allahu aclam inay Soomaali yihiin u direen yiraahdeen ninka la xidhiidh isaga ku kala kicinaya kanalada ama inay Soomaali la xidhiidh ku yiraahdeen qof Soomaali ma taqaano YouTube haysta oo noo faafiya marka kayga siiyeen taasna iska ilaaliya weligiina sinina kambaniyada hadday idinka dalbadaan lambaro ama مثلا YouTube Soomaali oo dadka u faafiya ka fogaada waxa ay doonayaan waan garananaa waxay rabaan dadka masaakiinta ee Soomaalida ah inay dhacaan lacagtooda ka gubaan bay doonayaan akhyaaray waa Ramadaan waana bil barakaysan waan ogtiin videoga qaabka loo sameeyo wax sahlan ma aha in kala googooysido editing ku sameeyo kala habaysid oo diyaarsidna wax sahlan waqti dheer way qaataa marka tacabkeena khasaareynina waxa way dadka la shirgareeya walaalaha la shirgareeya guriyaha Soomaalida gaarsiiya dadka wadankeena dad masaakiina oo wallahi agooma ah oo masaakiina maalin kasta lagu dhacaa oo Soomaali ba xitaa dhacda wallahi alcadiim waxyaalahan aad uga murugoodo weeye marka walaalayaal guriyaha Soomaalida gaarsiiya masaakiinta uga diga Soomaalida ama ajnabiga scammerska maalin kasta idin soo dhuumanaya wax weeye waa inaynu la dagaalno weeye scammerska iska ilaaliya Soomaali badan baa jiro scammers ah iska ilaaliya network ku shaqeeya book ku shaqeeya jiifo ku shaqeeya dadka dhacaya maalin kasta Kenyatta foodo gelinaya video soo duubaya nimanka Kenyatta u diray oranaya kaalay oo xayeysiin u sameeyay Kenyatta dadka loogu dirayo Soomaalida arkayaan videoskooda markay videoskooda arkaan Soomaali xayeysiinaysa ku soo daadanayaan marka waxaas oo dhan la dagaalamo idinkana waajib baa idin saaran inaad ku share gareysaan meel kasta Twitter miya Facebook miya wax kasta noqdo waa ogahay videoga marka aan sameeyo dadku they don't care way dhageysanayaan way tuurayaan dadka badankood ma share garinayaan way iska daawanayaan way tuurayaan laakiin dhib ma laha يعني إلهي رحمتي سلقما قستو مالمها كميدا ولا هلي دونا دد مخلصين أو مجتهدين أو ميل كستا كتور دونا فيديوز كا دد تاغيرا حقا وايمن دونان ولا لو وايمن دونان مالمها كميدا ميل غوري كستا غارسين دونا فيديو يدا مدى مساكين تا مالكو دا يحولوه دا بقويل عليها ونسيو دنا ميل كستو اسكامرنا ولا دقالم دونا انتا سيكتا إن شاء الله محمد الله رمضان مبارك إله سبحانه وتعالى هينغا أقبل دمان الأعمال الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وبارك الله فيكم وهذا أخوكم أحمد آدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.